Patricia Habboon ayaa dalka dib ugu soo laabatay, waxaana loo sameeyay arrin la yaab leh. Taageerayaasheeda iyo dad caanka ah baraha bulshada ayaa gabadhan u dhigay xalfad ay uga yaabsadeen, waxayna dalka ugu soo laabatay si ay u sii ambaqaado jiliinka musalsalka Habboon season-ka labaad. Muuqaalkan ayaan ku eegi doonaa dhammaan. Subscribe inoo dhig channelka, sidoo kale muuqaalkan like inoo saar. Iswaaq Siraaji oo aad u garanayso Habboon ma ahan gabar aad ku baratay oo kaliya musalsal jiliin, waxayse ay tahay gabar waxbarashada aad u jecel. Waxay hadda soo gabagabaysay waxbarashada heerka koowaad ee jaamacadda, waxaana la yaab noqotay in dad caan ah ay si la yaab leh gabadhan ugu soo dhaweeyeen Muqdisho. Sidoo kale taageerayaasheedana ay u dhigeen xalfad ka qiimo badan wax walba. Habboon ayaa ah gabar waxbaratay, waxaana mar walba ka arki jirtay musalsalkii Habboon season-ka koowaad. Markii jiliinka ay ku jirto xitaa waxaad arkaysaa ayada oo wax qorayso waxna akhrinayso, taasi oo ku tusaysay in nolosheeda qayb ka mid ah xitaa jiliinkani uu qayb ka ahaa. Maadaama mar walba xitaa ay wax jilayso ay ahayd gabar wax akhrinaysay. Habboon oo dalka dibaddeeda ka soo laabatay ayaa waxa ay noqotay mid shacbiyad weyn ku yeelatay Muqdisho. Taageerayaasheeda ayaa si lama filaan ah ku casuumay gabadhan xalfad ka dhacday Muqdisho maalmo ka hor, taasi oo ay ka soo qayb galeen dhalinyaro caan ka ah baraha bulshada sida TikTok iyo YouTube-ka. Waxayna uga farxiyeen gabadhan maalmaheeda quruxda badnaa iyo weliba in sumcad weyn ay ku yeelatay bulshada Soomaaliyeed, taasi oo ah in qaybta jiliinka ay si weyn uga baxsatay. Soomaaliduna hadda ay ku faanayaan in ay haystaan gabar Habboon oo kaleeta. Iswaaq Siraaji ayaa lagu magacaabaa, balse waxay dadku u garanayaan Habboon waxay noqotay mid ku milanta baraha bulshadana caan ka noqota, aadna loo xiiseeyo. Haddaba hadda waxay ii sheegtay in ay u joogto in shaqadeeda ay sii wado, taasi oo ah in uu musalsalka sii socon doono jiliinkiisa season-ka labaadna dhowaanahan la soo dayn doono, amase shaqadiisuba ay socoto sida gabadhan ay horeyba u sheegtay.